Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kormeeray dhismaha xarunta xukuumadda iyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo heer gabagaba ah maraya. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa la kulmay injineerada gacanta ku haya howlaha dhismaha iyo dib u dayactirka ka socda xaruntii hore ee xisbiga si ay ugu shaqeyso xukuumadda Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al-Cadaala ayaa sheegay in shacbiga Soomaaliyeed ay ahmiyad gaar ah u leedahay in ay xukuumadda ay ku shaqeyso xarun ku taala bartamaha Muqdisho oo si casri ah loo dhisay. Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kormeer ku tagay xarunta cusub xukuumadda federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto halkaan oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay ku shaqeyn doonto haddii Ilaahay uu yiraahdo. mashruucan waa mashruuc weyn oo heer gabagaba ku dhow. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo maray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan oo isugu jirta xafiiska ra'iisul wasaaraha, deegaanka ra'iisul wasaaraha iyo guriga martida xukuumadda masaajidka weyn oo halkaan laga dhisay. runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala mashruucan inuu si dhaqsi ah u dhamaado halkaan oo ku taala bartamaha magaalada Muqdisho oo ah halkii hore loo dhigi jiray xarunta xisbigana ay noqoto meel xukuumadda Soomaaliyeed ay ku shaqeyso, taasoo runtii maaragtay fursad weyn u noqon doonta amniga magaalada iyo sidoo kale fududeynta howlaha xukuumadda iyo adeegga dadweynaha intaba. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda ay ku shaqeyn doonto howlka shirarka iyo kulamada hoyga iyo deegaanka ra'iisul wasaaraha, guriga martida, masjid iyo sidoo kale dhismayaal kale.